dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa bilaabay wadaxaajood lagu horumarinayo ganacsiga labada dal waxaana ka soo saareen warmutiyad wadajir ah. Warbixintan oo kaga imaanaysa kanaalka arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha ee gal ganacsi ayaa ku soo gudbinayna warmutiyadka ay soo saareen labada dhinac. Wasiir Dowlaha Ganacsiga iyo Isdhexgalka Bariga Afrika ee Itoobiya Dengi Barrow iyo Wasiirka Ganacsiga Soomaaliya Khalifa Cabdi Cumar ayaa si rasmi ah u daahfuray wadaxaajood ganacsi oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya waxaana ka soo saareen kadib kulankooda warmurtiyeedkan. wasiiradu waxay isla garteen muhiimadda ay wada hadaladan u leeyihiin shaqo abuurka iyo maalgashiga dhinacyada ganacsiga iyo warshadaha labada dal waxaana go'aansadeen in la bilaabo wada tashiyo ku aadan xoojinta xiriirka ganacsi. dowladda Itoobiya iyo dowladda Soomaaliya waxay bilaabayaan wadaxaajood ku saabsan igleelida heshiiska ganacsiga isaga kala goosha xuduudaha iyadoo ujeedadu tahay in la fududeeyo badeecooyinka muwaadiniinta labada dal iyo in la yareeyo ganacsiga aan rasmiga ahayn ee xuduudaha. labada wasaaradood waxaa kaloo ay ka wada hadleen oo heshiis ku gaareen inay wada hadlaan kadibna ay kala saxdaan heshiisyo ganacsi oo laba geesood ah kaas oo kaabaya dadaalada isdhexgalka gobolka iyo Afrika oo ka mid yihiin suuqa iskaashiga ganacsiga ee bariga iyo koonfurta Afrika ee COMESA iyo aaga ganacsiga xorta ee Afrika. labada wasiir waxaa kaloo isku heshiiyeen in la dhiso guddi ganacsi oo isku dhaf ah oo fududeynaya shuruudo lagu sii xoojinayo xiriirka ganacsiga ee labada dal iyo kordhinta mugga ganacsiga. wasiiradu waxay isla aasteeyeen howlaha mudnaanta leh ee kor u qaadaya isku xirka ganacsiga iyo dhiirigelinta isdhaafsiga ganacsiga ee labada dal. sida awgeed wasiiradu waxay isku raaceen in la fududeeyo abaabulka golayaasha ganacsiga iyo isdhaafsiga khubarada iyo barnaamijyada khibrad wadaagga ah. wasiirka ganacsiga Soomaaliya Khalifa Cabdi Cumar ayaa dhigiisa Itoobiya Dengi Barrow iyo wafdigiisa ku casuumay in booqasho ay ku yimaadaan magaalada Muqdisho si loo xoojiyo xiriirka ganacsi ee labada dal. ugu dambeyn daawade maxaa faa'iido ah oo dalka Soomaaliya ugu jira wadaxaajoodkan ganacsi ee la yeelanayso Itoobiya.